Soomaali Maxamed waa ogaan doontaane odabahal hala dhageysto codkiisa anigana codkayga hala dhageysto walaalkii deeq codkiisa ugu jira hala dhageysto bal muhiimada runta asoo ogaada waa in jeclaas Muqdisho kama soo carro soo noqona waa imaana Muqdisho kama maarmo garood aan hadda dhex joogay idin mishay Muqdisho ka jeclahay ayadaan soo barbaaray sida aad ka arkayso wuxuu ka sheekeynaa waxyaabo fara badan klibkan muuqaalkan inay ku duubeen dhankaas iyo sidii dhankaas iyo Puntland inay ku duubeen dhankaas iyo Muqdisho oo amal isagu leeyahay ani Muqdisho kama soo cararin ama sabab u imaada dhankaas iyo Puntland waan la karaa inuu shuu ku qabsan doono ama meeshan oo kala kacsan doono waa wax iska macquul boqolkiiba nin daarood hadda isku qabo macnaa daarood tahay waxa xaqiiqda marka inay sheego anoo hadda garood joogo dhax fadhiya idin leeyahay aniga daarood kuma soo dhax barbaarin inta waxaan ku soo leekaada hawiye maanta daarood tiri hadii la yidho hawiye tiri wallahi waxaan tiri karaa hawiye because ayaan ku soo dhax dhaqmay qabiilna ma aqaano marka fanaanka ama dad fara badan baa waxay ku aad iyo aad ugu dhaleeceeyeen in dhanka qabiil ama dhan fara badan bay ka weeceen dhaheen qabiil waxyaabaha fara badan bay ku soo wada keeneen hadalkiisa ama si dad fara badan ay ku falaqayeen dhanka social media ay ku faafiyeen marka isaga wuxuu taagan yahay aniga ahaantayda waqti xaadirkan ama just waqtiga la joogo dhankan aan joogo magaalada Puntland aan joogo waxaaba aad iga fiican ama aad u wada jeclahay ama saameyn fara badan aan ku leeyahay taagan yahay dhankaas iyo magaalada Muqdisho beenama aan dhankaas Muqdisho waa meelii oo soo karay waa meeshii oo fankiis ka bilaabay waa meeshii oo horumarkii ka sameeyay ama levelku maanta taagan yahay gaarsiiyay marka taasna beentis baan boqolkiiba boqol ku saxan marka taas waxay ku cadeynaysaa inuu fanaankan fanaan qabyaaladeysta ama fanaan oo dhanka qabyaalada ka fog waa in badan marka taasna waa arin la dhigi karo aad iyo aad u fiican ama arin la dhigi karo ama lagu faanan karo si in fanaaniinta ka dheeraadan dhanka qabyaalada ama dhanka waxyaabahaas wax lamid inay ka dheeraadaan sababtoo tahay fanaanku wuxuu u samaysan yahay ama fanaanku wuxuu u haysaa fanaaniinta fanaanku wuxuu u haysaa mar walba in Soomaalidu idil oo haysaa laakiin qabyaalada gooni ah uma hayso ama uma hayso dad meel ka soo jeedo ama dadkiisa kaliya uma hayso laakiin wuxuu haysaa Soomaalidu idil ama dadku idilba wada haysaa marka waa arintaas waxaan dhigi karnaa waa arin aad iyo aad ku saxan yahay boqolkiiba boqol waa arin aad iyo aad lagu amaanin karo ama dadka ku dhaleecayaan dad fara badan baa ku dhaleecay dhanka qabyaalada ama dhahan qabyaaladeysta baa tahay marka arintaas waxaan dhigi karnaa arin laga wada fiican waa boqolkiiba boqol fanaankan waa fanaan dhanka qabyaalada ka dheer ama qabyaalada ka fog laakiin Soomaalidu sanadkan ama wax walba ka dhigtaan dhanka qabyaalada bay u badiyaan ama dhan walba ay la tahay ama dhanka markaas baraha bulshada la soo galibay u badan yihiin waa ka xumaata u dhiman kartaa nasab dale hadda waxa ciideer murti baaraada cid u meeyay marka saaxiib xisaabta